marka la hadlayo caalam la hadlayo ee laga hadlayo gooni sutaag ee laga hadlayo ictiraaf haday jirto markay yiraahdaan dawladdu war anagana waxaan wadana xisbiyadii mucaaradka ah ila shacabku raaci maayee iyo markay kaligood marayaan horta markay miisaan badan tahay waxaan wada garanaynaa ayaguna garanayaan in miisaan badan tahay markuu madax ninka xukuumadda ka hadlaysa dalku ama cid wafdi relationka ay la socoto xisbiyadii mucaaradka ahayd laakiin marka laga tago waa khafiif iyana way garanayaan laakiin waa khafiif lagu tala galay waxba la qarsanaya waxa la qarsanaya waxa imka loogu tagayo shirmanarada lagu galiyo aad sababa taa intaasan kaga baxaya hal arrin baan ku darayaa oo ah media ayaaba waxa ka maqlayseen cid baa la iska casiliyo cid baa xubin ka baxday waa dagaal midgood ay dawladdu wado wax kale ma aha dawladdu waxa loo geedin eerliba in nagu bilowdeen maayaradii la doortay degmooyinka ay campaign ku shaqo xisbiga uga saari lahayd ay ku torch garan lahayd inay ama xilka ka degaan ama ay ku soo biiraan xisbiga kulmiye dawladda ka xishoon weyday xubintii la doortay ee golaha deegaanka ay u doortay horumarinta inay u hagaajiso magaalada ka xishoon ma soo xubin la magacaabay oo ay ku soo farageliso waxaan u leenahay war xaaladda dalka waad arkaysaa hanagu wareegina annaga ishiyo hanaga dhiganina maanta aad ogtiin Puntland campaign-ka waxa lagu galay laascaanood iyo sool baan dib u qabsanaya waana lagaga dhaweeyo xubnaha la doortay ilaa min madaxweyne ilaa ya baarlamaan ilaa wasiirka amniga waxa weeye waa interest Somaliland wasiirka amniga waxa loo dhiibay nin Somaliland baarlamaanka Somaliland baa loo dhiibay war halku dalkii maray inta aniga lagu wareegsan isuduwaha caafimaad